hay-adda Imaam Khomeini oo hay-ad gargaar laga leeyahay dalka Iiraan ayaa maanta xaflad ay isugu guurinaysay 16 dhalinyaro oo ah wiilal iyo gabdho ku qabatay magaalada Muqdisho. munaasabadan oo lagu maamuusay aqalgalka 16 lamaane oo caawinaad ka helayay hay-adda Imaam Khomeini oo ka diiwaan gashan dalka Iiraan ayaa maanta lagu qabtay hotelka Guest House ee magaalada Muqdisho. xafladda aqalgalka lamaanayaasha ayaa waxaa ka qayb galay danjiraha dowladda Iiraan ee Soomaaliya, xubno matalay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, culimo u diin, haween, oday dhaqameedyo, lamaanayaasha isguursaday iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladda. arrintan oo hay-adda Imaam Khomeini ay isugu guurinaysay lamaanayaasha ayaa ah mid ku cusub magaalada Muqdisho, waxayna dadka Soomaaliyeed ay isweydiin karaan qaabka iyo siyaabaha loo soo xulay, balse madaxa hay-adda Imaam Khomeini ayaa sheegay in ay ka soo xuleen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah xeryaha barakacayaasha. lamaanayaasha ayaa waxay da'doodu u dhaxaysay 18 sano jir ilaa iyo 20 sano jir, waxaana ka mid ahaa wiil aad u da'yara. qaar ka mid ah lamaanayaashii xafladda loo qabtay oo cabiriyay dareenkooda iyo caawinaadda loo fidiyey ayaa yiri: tawarka maadaama wiilku ugu da'da yar haddana loo guuriyey inaan aad tahay maanta, ka war dareenkaaga? haye waa garta maxaa dareemaysaa hadda? madaxa hay-adda Imaam Khomeini Jaliil Fatayashfar oo hadal ka jeediyey munaasabadda ayaa sheegay tan in ay tahay wax aad looga farxo. واليوم هذه يعني الحفلة هي خاصة للزواج 16 شاب وفتاة من أخواننا وأخواتنا المسلمين الصوماليين، ونحن نحس أنفسنا في بلدنا الثاني في الصومال، ومن واجبنا الشرعي والأخلاقي والإنساني والاجتماعي. gabagabadii munaasabadda waxaa hadalka qaatay safiirka dowladda Iiraan u fadhiya Soomaaliya, Musawi Sayid Haydar, isagoo u mahad celiyay hay-adda Imaam Khomeini hawsha wanaagsan ee ay qabatay. Young brothers and sisters, newlyweds, that they are going to form new family, and I hope that with their efforts and under protection of God, the future will be shiny and prosper, inshallah. munaasabadda maanta lagu guurinayay lamaanayaasha ayaanan lagu soo bandhigin kharashaadka ku baxay munaasabadda. maraan isku daynay in aynu wax ka weydiino kharashaadkii ku baxay munaasabadda ayaan inoo suuro gelin mar aynu la xiriirnay madaxa hay-adda Imaam Khomeini. Muuse Cusmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.